Shiliinku waa waxyaabo ugu wanaagsan ee maanta sawirka cajiibka ka bixiya dunidan aynu ku noolnahay. Waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysid dadyo fara badan oo Soomaalida ka mid ahaa oo hibo lahaa markii dambena aad weyday. Waxaana laga yaabaa inaad isweydiinaysid talo halkay ka dhaceen dadkaasi maxaase helay. Sayidka barakaysan waxa uu ka mid yahay dadka hibooyinka gaarka leh. waxbuu alifaa, waxbuu jilaa, wax badan uu ku soo kordhiyaa matalaadda kala duwan ee Soomaalidu ay samayso. inta badan waxa uu ka warramaa waxyaabo fara badan oo ka jira agteenna. qofkuna markuu wax jilayo in waxyaabo kale ka sheekeeyo maahe waynu ka sheekeeyaa wax walba oo agteenna ka jira. sayidka barakaysan marka ugu horeysa aad aragtid waxaad markaba dareemaysaa inay ku jiraan hibooyin fara badan oo aan caadi ahayn. haddaba Soomaalida ayaa inta badan waxay isku daydaa marka aragto qofkaasi inuu hibo leeyahay ama inuu kor u socdo inay cadaadiso ama ay xiisho ama ay caburiso intaba. sidaa darteed dadyo fara badan ayaa khadka uga baxay oo aan weynin meel allaale meel ay ka dhaceen markii horena hibo cajiiba lahaa. laakiin dadyo fara badan ayaa waxay jecel yihiin qofka hibada leh inuu kor u baxo. way jiraan Soomaali tiro badan oo inta badan isku dayda inay caawiso qofka hibada leh. waayo markuu qofku arko inuu qofkaasi hibo leeyahay waxa uu u baahan yahay waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay inuu kor ugu qaado awoodiisa xirfadda ama hibadan ku dhex jirta sidii uu dadka ugu soo bandhigi lahaa. waxaan aynu u baahannahay qof walba oo hibo leh intaanay ku dhex dhiman inaynu inaguna kor u qaadno ama aynu buunbuunino si qofkaasi uu noqdo qof ka sarreeya halka uu taagan yahay maanta. waxaa laga yaabaa sayidka barakaysan maanta waxaanu ka sheekeynayaa inay tahay wax yaroo kooban, laakiin haddii aynu kor u qaadno inuu ka sheekeynayo ama uu alifayo waxyaabo kale oo ka duwan waxaanu hayo. sida ayd wada ogtihiin waxaynu gallay xilligii qaboobaha. waxaa laga yaabaa markaad gurigaaga timaadid inaad haysatid waxyaabo fara badan oo aad dhaxanta iskaga difaacdid. waxaana laga yaabaa gurigaaga inaad ku shidatid kulaylka daran. markaad qolkaaga gashidna inaad haysatid bustayaal fara badan oo aad ka huwatid dhaxanta. laakiin ma ogtahay dunidan aynu ku noolnahay inay joogaan dadyo fara badan oo aan haysan waxay huwadaan iyo guri ay galaan labadaba. marwadani waxay ka mid tahay dadka ku tabaalaysan waddanka Canada. waxaana ay huwatay bacda yar oo ay dhaxanta ka huwatay. waxay tiri ma haysto guri aan galo, ma haysto waxaan dhaxanta ka huwado, mana haysto daryeel daran oo aan nafteeda ku daryeelo. waxaana ay tiri adduunku waxa ugu liita qofku markaanu haysan wuxuu cuno, wuxuu huwado iyo wuxuu galo intaba. laakiin waxay tiri waxaas waxba ima yeelayaan waayo waxaan u samrayaa xaaladda dunida iyo isbeddelka dunidan aynu ku noolnahay. waxaa laga yaabaa inaad haysatid guri weyn, dhaxanta meel aad ka gashid iyo qol aan caadi ahayn iyo gawaadhi kala duwan oo gurigaaga kugu guda jirta. laakiin waxaa laga yaabaa nimcada inaanad mar keliya odhan alxamdulillaah oo aad diidaysid waxyaabo kale oo ka sii sarreeya waana caadada bini'aadanka. laakiin ma ogtahay intaada inuu qof kale eeganayo oo uu majeeranayo, inuu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala hadduu intaa mar keliya i siiyo waxaan odhan lahaa alxamdulillaah. haddaba dunidan aynu ku noolnahay waxaa jira dadyo fara badan oo aan haysan waxay dhuunta mariyaan, waxay huwadaan iyo waxay galaan intaba. maanta waxaynu gurigeeda ugu tegi doonnaa aktaradda caanka ah ee Iimaan. Iimaan waa gabadh Soomaaliyeed waxaana ay ku dhalatay magaalada Muqdisho 1955. maanta da'deedu waa 66 sano. Iimaan waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee filimada Mareykanka ka soo dhex muuqata. gabadhani waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee modelka dalka Mareykanka ka soo dhex muuqata ee Soomaaliyeed. waxaana shaqada ay bilowday 1975. halkan ay ku sugan tahay waa gurigeeda.
gurigan waxa wada deganaan jiray iyada iyo odaygeeda. Odaygeedu waxa uu ahaa aktar caan ka ahaa dalka Mareykanka oo la odhan jiray David. Iimaan waxay ka sheekeynaysaa taariikhdii ninkeeda David, waxaana ay tiri halka waxa yaala waxyaabo cajiib ah oo uu ninkeedu isticmaali jiray. Iimaan waxay sheegtay guriga weyn inay ku wada noolaayeen iyada iyo odaygeedu, laakiin waxay tiri David waxa uu dhintay 2016. waxaana ay tiri Soomaaliya maanta waxba kama xasuusto, waayo waqti aad u dheer ayaa iigu dambeysay. shaqadan waxay bilowday 1975. waxaana ay tiri waxaan ahay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ah ee ka soo dhex muuqata filmada dalka Mareykanka.